nimankeena Soomaalida horta qaar dahaban way ku jiraan qaar xunna way ku jiraan sida runta ah gabadhaas waxa weeyaan waxa uu ooyay gabadhaas waxay tahay qaarka dambe ka fariisatay ayada dhanba waxa la qabay 21 bari arooska markii ay ka baxday ninkeedii waa adeeganaysa ma fahanteen asagii ayay raashin u soo doontay suuqa soo aaday way adeeganaysa ma fahanteen xabad wiifta ayaa waxa uga dhacday dhabarka xabad wiifta ayaa alxamdulillah agtiisa ayay uga dhacday qatarna waa dhabarka la aad iyo aad dhabarka halis yahay xididada waxa ku jira jirkaagan waxa ku jira xidido oo maaragtay hadii aad xitaa jug yar ee kaaga dhacday halis ee tahay ma fahanteen alxaasal gabadhaas dhabarka markay uga dhacday isbitaal loo qaaday isbitaalka la seexiyay gabadhii waxa la yiri qaliin lagu sameeyay waxba laakiin uma saqarin qaarka dambe dhan way ka fariisatay qof micnaha oo dareen lama ahan saxaradii iyo kaadidii iyo wixii dhan isku darsamay ma fahanteen gabadhii ayada ahayd ninkeedii markuu maqlay arintaas xabad baa dhabarka uga dhacday maalinta ugu horeysay way u wada tageen laakiin markay maqleen waxba laga ma qaban karo oo saxaradii kaadidii iyo wixii dhan baa isku darsantay oo neerfaha dambe oo dhan dhintay markii la yiri runtii gabadha waxay leedahay xabadda igu dhacday waxa iiga xanuun badan ay tiri furiinka uu furay anigoo waliba isbitaalka jiifo gudaha adi faamiligiisa dadkiisii waxay isku raaceen gabadha in la furo badalku garab istaagi lahaa waxaan ku irasii lahaa waxiliga u baahan tahay niyada u dhisi lahaa hatta muddo haduu qabi lahaa xitaa wax dhanay ahaan lahayd laakiin isla markii ayuu furay ma fahanteen isbitaalka iyada ku jirta ayuu furay meesha ninkeedii inuu yimaado oo maaragtay galgacal iyo maaragtay u muuji jacayl oo maaragtay la tacaalo oo ayaaman xitaa afadaal ayaaman xitaa inuu qabay ahayd haduu furay xitaa ay ka soo dhamaanayso caafimaadka waa shay qaali ragga qaarna way kula tacaalayaan laakiin waa dhif iyo naadir ma fahanteen yaa gabadhii laakiin waxay tiri niyadiya iga dhimatay tiri dhaawaca waxa iiga darnaa iyo markii la yiri tiri qaarka dambe ever baad ka tahay oo dalka gudaheeda waxba lagaaga ma qaban karo waxa iiga darnaa ayay tiri xabadii waxa iiga darnaatay tiri ninkii furay tiri mar labaad ayaan ooyay tiri aad iyo aad ayuu ilmeynaysaa gabadhaas aad ayay u macnaha ay u xumaatay daawicii dhibaatada waxa uga daran ninkeedii furay ninoo abaal malihid ragga qaar wallahi intii xumeed ayaa intii fiicneed dabooshay xumaantooda ayaa soo baxaysa mar walba mid wax dila mid naagtiisa dila ka siiya mid maaragtay ku naca caafimaad darada ku naca mid ku naca maaragtay muxuu ahayd hadii gabadha ay dabeecadeeda isjeera bedesho oo kale aan adkaysan karin gabadhi dhameed uu soo guursaday oo 21 bir kaliya uu qabay alxaasil gabadhi waa uu furay waxaasna horta wax fiican ma ahan raggeena Soomaalida wallahi janabiga waxaan uga duwanahay uma adkaysan karno gabar xanuunsan uma adkaysan karaan muxuu ahayd markay isbedesho ama si kale ay noqoto aad iyo aad horta uga xumahay taas waxaaba ka sii maaragtay niyada hadana ka sii gelisay maamo ay qaraabo yihiin oo waxay tiri dhinaca hooyadii aan qaraabo ka nahay ayaa waxay iga ballan qaaday tiri maalinta ay baxdo way tahriibtay tiri maalintan aan tago oo nabad tagay tiri inaan ilmaheygii oo kale aan kugu kaxeenayo oo waan korsaday gabar bareelaada waa qaarka dambe ka fadhidaa aan leeyahay tiri aad dacwo noocaas markii xaqi ay tagtay ilaahay sharciga waa u sahlay waa loo ogolaaday tiri gabar aan korsadaa jirto waa sidaas adiga iga micnaha ay iga bixisay tiri bas adiga markii dambe waxay tiri markii loo ogolaaday waxaana la dhahay tiri way soo wacday tiri waxay tiri hadii aad guri kiradiisa iyo maaragtay noloshaada abiilka aad ku dirsanaysid tiri ilmaheyga iyo odagayga oo Kampala aad tikidkana iska bixinaysid waxay tiri soo dhawo waan kugu maaragtay waa baxaysaa inta sadaa helaysid adi waxay tiri maamada markii intaas tiri anaga waxa maanan haysanin adi dadaan wacday tiri mid oo dumaashiga wuxuu yiri ilaa waxaan ka dhiibayaa tikidkan ka bixinayaa wixii la helana martaas waa ugu siin doonaa ilaa iraada baladii bixis aad helaysid waayahay tiri Uganda nala keenay markii nala keenay waxay tiri
waxaan ka arkay tiri isbedel reerkii isbedel ka arkay waxaan ka arkay tiri muxuu ahayd ninkeedii ma istaaqur sheekada ay soo kala dhamaadee waxay tiri markii meesha la keenay dhahday ha reerkii isbedeleen haddana waa soo laabanay tiri mar labaad waxay tiri waxa lagu soo xareeyay tiri Kenya haddana Kenya la aadaa la yiri ayaga fiisa iyo waxyaabo way heleen anigii markii oo waxay tiri ma istaaqur waxay tiri markaan tagay safaaradii oo waxay tiri xaq ka furneyd baa waxa la dhahay tiri reerkan way ka soo hormareen waana micnaha degdegsiin ku imaadeen adiga sidaan ahna way ka soo tageen reerkan ma ku korsanin miyaa way korsadeen qaraabana nahayaan dhahay tiri leefeelka oo basaas ku xareysnaa marka waxay dheen adiga kaliga ayaa fiisa ku siinayna oo ku aadid Kenya marka ayagina waa loo diiday tiri sababtoo ah ana iga soo carreen oo iga soo tageen tiri markii subaxii la baxay tiri oo fiisaha la soo qaadanay dhahday aniga waxay tiri hadda maamadii dhameyd oo ilmaheedii odageedii laga tagay ani kaliya mi wadaysay tiri aniga waxaan ku dhahay saasa jirta anigana hadde waaba sidii aan filayaa dhacday tiribo waan wacay waxaan dhahay tiri arinta saasa jirta odaygu wuu xanaaqay wax lagu kaxeena ama lagu wadaayo ama maaragtay aad bixis ma jirto idhaahdo waxay tiri waa laga kansalay ilaa hadeerna waxay tiri sidii ayaan ku joogaa Soomaaliya sidii ayaan xanuunsanahay aabe waxay tiri waa u dhintay reerkeenana waa iska sabool hooyadeydaas ayaa ila tacaasho oo ila dhibtootay leedahay gabadha marka qisa aad iyo aad u xanuun badan waayo waxaan halkaas aan uga sheekeynayaa waxay tahay ragga Soomaaliyeed ma ahan inay gabadha ay caafimaad ku rabaan haddii gabadhiisa ama wiilkiisa uu xanuunsadaba uu la dhibtoo lahaa taasoo kala leen ka rabaa caafimaadka inaa ku guursatiin kaliya oo caafimaad kaliya aad ku rabtiin oo maaragtay caafimaad qabtan leh maaragtay lixaadeeda maaragtay fiicanta lixdeeda lixaad ama maaragtay shanta bood la mid ah inaa micnaha aad kaliya inaa jecel iyo wanaag loo muujiyo ma ahan marka ko soo shukaasanaysiin waxa dhaaday waa kula dhimanaya haddii maaragtay asaas noqotid wallahi anaga waan ka fiicanahay ragga Soomaaliyeed waxaan uga fiicanahay anaga dooninkeena in abeer xataa waa la hogaaminaya naxariista anaga badata anaga ma fahanteen iska badaabo qof oo maaragtay lixdiisa lixaad qabo ama meel xanuunta ama bariyaad ilaahay raadibid ilaahay u qas gabadhaad waxa laga yaabaa xabad in laga bixiyo ilaahay caafimaad siiyo lugeedu ku istaagto ma fahanteen marka dhibaato waaye walaayaada wax maaday qisadaas saas ay inaha aan ka joog waayay ragga Soomaaliyeed oo ilaahay ka cabsada inta badankoodu way xun yihiin in ka soo hartana waa dad iska fiican ma sha Allah oo kaala araga ya isku wada qaraya aniga hana ii xanaaqina ma fahanteen ya marka ka soo gabagabeynaya